nebiga sallallahu alayhi wasallam asigoo nolosha ka sii tegaya saxaabada ayuu sidan u fiirinaya wuxuu leeyahay ha dayeecina salaada as-salaah ummadiisa ayuu u dardaarmaya wuxuu leeyahay salaada ha dayeecina ayuu leeyahay maalinta qiyaamana waxa ugu horeeya qofka la xisaabin doona waxay tahay waa salaada haday sanaadu ay wanaagsanaato waxa kale oo dhan way wanaagsanaanaysaa nebiga murugga haday qabato salaada ay u urdi jiray sababtu maxay tahay sababtoo ah wuxuu la kulmayaa waxay tahay qalbigiisa ay ku raaxaysanaysaa la kulanka boqorka midka abuurtay adduunkan ee cirka ilaahay subhanahu wa ta'ala bilaal ay u wacaya wuxuu leeyahay ya bilaal arihna biha ya bilaal salaada nagu raaxay bilaalow sababtoo ah ilaahay subhanahu wa ta'ala la kulankiisa ayuu jeclaa adduunka oo dhan ciriiri haday kuugu noqoto adduunka oo dhan mugdi hadaad dareentid dadka oo dhan haday ku dulmiyaan ku xantaan kuugu soo horjeestaan albaab walba haday ka xirmato deynta ay kuugu ziyaado xanuunka ay kuugu ziyaado wallahi hal albaab ayaa jirto salaata da u istaagtid ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa kun fayakun wax aanan suurtagal ahayn ayuu suurtagal ka dhigayaa waa shay cajiib ah salaada qofka mar walba uu xifdiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa xifdinaya sababtoo ah ilaahay subhanahu wa ta'ala inta naxariisata waa midka ugu naxariis badan ilaahay subhanahu wa ta'ala as-salaah midka ugu horeeya waxay tahay waa salaada mar walba qofka salaada uu xifdiyo waa mar walba ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u sii dhawaado